waxa laga yaabaa inaad aqoon nambaro sir ah kuwaasi oo ku kaydsan ambaad ku isticmaali karto mobilkaaga smartphone-ka amba haddii aad isticmaashaba aad u soo marto istabis dhaadheer oo waqti badan ka qaata. Haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa codes aad ku isticmaali karto mobilkaaga kuwaasi oo ku qaban doona shaqooyin cajiib ah. codes kan aad la wadaagi doonaa waxay u badan yihiin codes badan ku shaqeynaya mobileska ku jiro operating systemka Android-ku amba operating systemka kale iOS labada waxay yihiin mid ku shaqeynaya. Haddaba muuqaalkan la soco si aan la wadaago codeskan iyo siyaabaha aad u isticmaali karto. Codeka ugu horeeya aad ku isticmaali karto mobilkaaga smartphone-ka ayaa wuxuu yahay haddii aad u baahan tahay inaad ogaato IMEI numberka uu leeyahay mobilkaaga ama numberka gaarka ah ee uu leeyahay mobilkaagu kaasoo ka caawin kara hadhow talo haddii macallin mobilkaaga laga xado security ahaan amba mobilkaaga soo ceshataba waxaad ku heli kartaa inaad samayso inaad qorto code-kana xidig 4 gees eber 6 4 gees inta marka qorto waxa ku soo bixi doona wuxuu noqon doonaa IMEI numberka uu leeyahay mobilkaagu. Waxaad ku ogaan kartaa siyaabo kale oo tusaale ahaan oo kale sitigiska aad booqato laakiin habkani wuxuu yahay hab si degdeg ah aad ugu ogaan karto markaba. Code-kan labaad waxaad ku isticmaali kartaa amba aad ku furan kartaa waxaan ay u naqaano call waiting amba hadaynu si kale u sheegno waxa weeye haddii aad u baahan tahay inaad furato adigoo number la hadlaya inuu ku soo gali karo number kale kadib aad awood u leedahay in numberka aad ka qaban karto waxaad ku furan kartaa code-kan kooban adigoo qoraya code-ka ah xidig 434 gees inta markaad qorto waxa si toos ah ku furmi doona wuxuu noqon doonaa call waiting. haddii aad u baahan tahay inaad iska xidhana waxaad qori kartaa 4 gees 434 gees. code-kan kale saddexaad waxaad ku tijaabin kartaa haddii aad u baahan tahay inaad tijaabo degdeg ah ka qaado mobilkaaga tusaale ahaan inuu shaqeynayso kamarada hore kale amba speakerka amba soo kale sensorku waxaad ku ogaan kartaa adigoo qoraya code-kan kooban ee ah xidig 4 gees eber xidig 4 gees kadib waxaad awood u leedahay inaad ka qaado tijaabada. code-kan afraad ayaa waxaad ku isticmaali kartaa haddii aad u baahan tahay in marka qaarkood aad iska xidho in mobilkaaga number laga garaaco ayaa waxaad samayn doontaa waxaad qori doontaa code-kan ah xidig 3 hal 4 gees kadib waxa saas ku xidhi doona wuxuu noqon doonaa in mobilkaaga number laga garaaco. haddii aad u baahan tahay inaad dib iskaga xidhana waxaad qori doontaa code-kan ah 4 gees 3 hal 4 gees. waxa dhacda marka qaarkood marka mobilkaagu yahay lama heli karo amba sidoo kale uu yahay waa mashquulba inuu ku xawilmo numberkaagu number kale. haddaba haddii aad u baahan tahay inaad ogaato in numberkaagu uu ku xawilan yahay number kale waxaad qori doontaa code-kan kooban ee ah xidig 4 gees 6 hal 4 gees kadib waxaad arki doontaa hadhow tolo haddii uu ku xawilan yahay mobilkaagu number kale numberka ayaa ku soo bixi doona. haddii sidoo kale aad u baahan tahay in numberkaaga aad ka saarto numberkan uu ku xawilan yahay isagana waxaad qori doontaa code-kan kale ah 4 gees 4 gees 22 4 gees. code-keena ugu dambeeya soo kale oo kale wuxuu ka mid yahay codeska ugu muhiimsan ayaa waxa tahay haddii aad u baahan tahay in hal mar aad ka saarto daatada ku jirta mobilkaaga amba aad format garaysaba xagaad ka mir lahayd istabis dhaadheer waxa kugu fulan kaliya samayso inaad qorto code-kan kooban ee ah xidig 2 7 6 7 xidig 3 8 5 5 kadib waxaad ugu dabaysan doonaa wuxuu noqon doontaa 4 gees. haddaba waxaan kula talin lahaa code-kan inaad isticmaalan adigoo raba amba u bareeray inaad samayso sir mooyaane. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa muuqaalkii koobnaa aynu ku eegnay nambarada sirta ah ee aad ku isticmaali karto mobilkaaga. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalada sidoo kale ah fadlan like si aan u soo badino soo kale la wadaag asxaabtaada iyagana si ay uga faa'iidaystaan.